haddii aad arki jirtay telefoon caadi ah, haddii aad arki jirtay telefoon isku laabma sida kan oo kale, wax ka duwan ayaan kuu hayaa caawa. Waxaan sagooni ka helay telefoonkan 3 jeer isku laabmaya oo ah Huawei Mate X-T. Waa trifoldigii ugu horreeyay ee ebid adduunka ka soo baxa. Aan kartoonka ka furo, ku tusiyo mucjisada gaarka ah ee telefoonkan uu wato. Dabcan telefoon waa la dhihi karaa, tabletna waa la dhihi karaa. 3 jeer ayuu isku laabmaa. Mar waa telefoon, mar waa tablet, marna waa tablet cabirkiisa uu sii weynaaday. Aan ku tusiyo kartoonkiisa ka furo sida uu eg yahay iyo waxa gaarka uu wato. Ugu horreyn waxaad moodaa in kartoonkiisa si taxaddar leh loo naqshadeeyey loona soo xiray. Marka ugu horreysa kartoonkan aan ka furo, waxaad moodaa in tabletkan ama telefoonkan Huawei-ga loo diyaariyey in qof hadiyad ahaan loo siiyo. Dabcan sida uu u design gareysan yahay darteeda. Halkan waxaa ku qoran Huawei Mate X-T Ultimate Design. Designkii ugu dambeeyey macnaha. Marka ugu horreysa, dusha waxaa saaran trifoldiga Huawei Mate X-T. Xagga aan dhigo. Kan waa warqadiisa. Kan waa shaashadiisa 3 ah. Mid walba nambarka uu leeyahay. Markaa kadib waxaa xagga hoose ugu tagaysaa qaybta jaajarkiisa oo halkan waxaa ku jira charger 65 watt ah. Halkan waxaa ku jira sim ejectorka. Waxaad halkan ka dhex helaysaa cover loogu talagalay tabletkan ama telefoonkan. Sababtoo ah way adag tahay in shirkadaha caadiga ah ay cover u soo sameeyaan. Aan markan kartoonka ka furo Huawei Mate X-T. Marka ugu horreysa, halkan waxaad u jeedaa in kaamiradu ay ka soo baxsan tahay. Kaamiradan waxay u naqshadaysan tahay si ka duwan sida telefoonada kale oo idil ay u naqshadaysan yihiin. Telefoonada kale 1 iyo 2 iyo 3 iyo 5 hadba waxay noqdaan way is dhinac yaalaan Soomaha. Halkan kaamiradaha oo idil halkan ay ku jiraan. Waa qayb yar oo ifaysa. Flashlight-kana xagga dhexe ayuu ku jiraa. Balan kartoonka ka furo markaa. Wow. Telefoonkan waxa aadka u qurxinaya waxay tahay naqshadiisa dhabarka dambe oo aad arki karto. 3 qaybba waxa uu leeyahay cover leather ah oo xitaa uma baahnidba in cover caadi aad u isticmaasho. Coverka caadiga ah kan la socda. Si guud marka aad telefoonka hal xabo ahaan gacanta aad ku hayso ayaad isticmaali kartaa. Laakiin sida kale waa uu ilaashan yahay oo leather ayaa lagu soo dahaaray. Sidoo kale qayb walbana waxaa xuduud ahaan loo dhaxaysiiyey qayb yar oo dahabi ah oo iyadana nuuraysa ama ifaysa. Sidoo kale waxaa xiiso leh sida uu u dhuuban yahay. Aad ayuu u dhuuban yahay. Markaad doonto marka inaad isku laabto, marka ugu horreyso sidaas ayaad isugu laabaysaa. Marka kalena sidaa ayaad u sii jabinaysaa. Haddeer marka isla marka waxaad arki kartaa in telefoonku uu 3 dabaq yahay. Dabaqa koowaad, dabaqa labaad iyo dabaqa saddexaad. 3 jeerba 3 xaalad ahaan ayaa telefoonka u kala isticmaalaysaa. Marka ugu horreysa, telefoonkan hadda waxaad u isticmaali kartaa in telefoon caadiya gacanta aad ku qaadan karto, jeebkana aad gashan kartana uu yahay. Marka labaad, isagana sidaa ayaad u haysan kartaa. Marka saddexaad, sidaa ayuu u weynaanayaa oo shaashad is haysta dhinac ilaa iyo dhinac kale ayuu noqonayaa. Sidaad u jeedo waan shiday. Laakiin waxaa muhiim ah inaan kuu sheego in operating systemka ku jira uusan ahayn Android maadaama Huawei xayiraad caalami ay saarneyd muddooyinkii ugu dambeeyay ama sanadihii ugu dambeeyay. Nooca operating systemka ee ku jiran waxaa loo yaqaanaa Harmony OS 4.2. Marka ugu horreysa aad shido aad luqadda dooranayso, dabcan waa uu ka duwan yahay sida xitaa luqadda aad u dooranayso. Waad u jeedaa in luqadda balloons kala duwan ay ku jiraan. Luqadda aad doonto ayaad markaa kasii dooranaysaa. Sidaad u jeedo hadda waa uu kala baxsan yahay oo cabirkiisu waa 10.2 inch. Marka aad sidaa isugu jabiso ama 2 qayb aad ka dhigto waxa uu noqonayaa 7.9 inch. Laakiin markaad ugu dambeyntii telefoon caadi aad ka dhigato cabirkiisu waxa isku bedelayaa 6.4 inch. Kaamiradiisa sidaad u jeedo waa 4K oo 50 megapixel ayuu midka ugu weyn yahay. Dabcan halkan waad ka kala dooran kartaa 4K ama Full HD hadba midka aad wax ku duubanayso. Zoomkiisana ilaa iyo 10x zoom ayuu leeyahay. Bal fiiri ilaa iyo 10x zoom 5, 2 iyo 1 iyo wide intaba uu leeyahay. Kaamiradeeda selfigu waa 12 megapixel. Telefoonkan
waxyaabaha kale ee xiisaha leh uu leeyahay waxaa ka mid ah in raamkiisa uu yahay 16 GB oo RAM ah. Dabcan 16 GB oo RAM kombiyuutarada waaweyn ayaa lagu keenaa hadda, laakiin taleefanada 16 ilaa hadda wax gaarsiisan badanaa ma jiro. Marka 16 RAM macnaheedu waxay tahay in gamingkiisa iyo barnaamijyo waaweyn ama barnaamijyo badan haddaad isku furanaysa iyo intaba aad si smooth ah u wada isticmaali karto. Dabcan labada dhinac markaad ka fiiriso, dhankan waxa uu kaliya ka laaban yahay 2 jeer, laakiin dhankan markaad ka fiiriso waxa uu ka laaban yahay 3 jeer. Taa macnaheedu waxay tahay telefoonka markaad isticmaalayso hal mar haddii aad kala furto waa in isaga dhan aad kala furtaa si aad u wada isticmaasho. Haddii kale telefoonka intan kaliya ayaad ka isticmaalaysaa, laakiin markaad sidaa u furto ayaad isagoo dhan wada isticmaali kartaa. Waxaad sidoo kale samayn kartaa in aad sidaa isugu jabiso oo telefoonka 3 shaashadood sida aad u aragto, laakiin sida saxda ah ama ay ku fiican tahay waa in sida uu kugu wada furnaado ama in sida oo kale telefoon ahaan aad u isticmaasho. Telefoonkan raamkiisa sidaan kuu sheegay waa 16 GB, kaydkiisuna waxa uu ka bilowdaa 256 GB, 512 ilaa iyo 1 terabyte ayuu leeyahay. Dabcan telefoonka waxyaabaha xiisaha gaarka u yeelaya waxay tahay in halkan uu leeyahay leather qurux badan oo magaca telefoonka dahabiyana uu ku qoran yahay, kofarna aadan u baahnayn marka telefoonka aad sida u sidato. Dabcan shaashadiisuna waa shaashad tayo leh oo OLED display ayay ka samaysan tahay. Waxaan is leeyahay telefoonkan waa telefoonkii ugu xiisaha badnaa ee sanadkan aan arko. Adigan waan rajeynayaa in wixii aad ka fahantay aad xagga faallooyinka nagula wadaagto. Telefoonkan advanced-ka ah ee keligii adduunyada ka yaala ee trifoldiga ah waxa uu hadda yaalaa Sanguni Electronics oo aad uga barateen qalab tayo leh oo tolan weliba. Dabcan telefoonkan Sanguni ayuu hadda diyaar kugu yahay. Haddii aad u baahan tahay waad ka dalban kartaa. Sidoo kale waxaad kala xiriiri kartaa nambarka WhatsApp-ka ee shaashada kaaga muuqda, ama waxaad ka adeegan kartaa ama aad ka shopping garaysan kartaa sanguni.so. Anigoo markale kaaga mahadcelinaa waqtiga qiimiga badan ku bixisa daawashada muuqaalkan. Sidee u aragtaa telefoonkan Huawei Mate X T? Fadlan faalladaada qaybta hoose inoogu reeb. Sidoo kale ha ilaawin inaad muuqaalka jacayl u reebto oo aad nagu soo biirto ugu dambeyntii haddii aadan naga mid ahayn. Inta laga gaaro muuqaalka xiibadenkii, nabadgelyo.